Salaamu calaykum. Kusoo dhawaada YouTube channel-kayga. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo ka mid noqo asxaabteena. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa hadduu Allah raali ka noqdo. Hooyo mataano wado si normal ah oo caadi ah may u dhali kartaa. Sida caadiga ah markii uu uurjiifka dhalanayo waxaa loogu talagalay ama qaabka ugu saxsan uu soo baxo waa inuu madax keen yahay oo uu madaxa soo hormarsado waliba position madaxa ka sii mid ah oo loo yaqaano vertex waa inuu soo hormarsado oo madaxiisa uu hoos jiro. Mataanaha markii ay yihiin waxa ay yeelanayaan laba position ama laba hab oo ay u dhashaan ayaa jirta. Uurjiifkana waxa uu iskidiyaa bilaha dambe ee uurka ayuu iskidiyaa oo uu noqdaa positionkii ama qaabkii uu ku soo bixi lahaa ayuu isku diyaariyaa. Labada hab oo ay mataanaha haddii ay yihiin ay si normal ah oo caadi ay u dhalan karaan oo uuna muhiimsan ayna u badan yihiin hooyooyinka mataanaha si caadi u dhala waa labadan hab aan hadda kuu sheegi doono. Kan koowaad waa in labada uurjiif ama labada mataanba ay keensadaan madaxa labadoodaba inay madax keen yihiin waana midda ugu fiican oo ay haddii labadoodaba ay madax keen yihiin hooyada ay u fududaanayso in ay si normal ah ama caadi ay u dhasho. Qaabka labaad oo ilmaha haddii ay yihiin uurjiifka uu si normal ah uu u dhalan karo waxay tahay haddii midka koowaad ee soo horeeyo uu madax keen yahay. Kan koowaad haddii uu madax keen noqdo waa habka ugu saxsan uguna fiican. Halka midka labaad ama mataankiisa labaad uu noqonayo daba keen. Qaabkan hadda aan kuu sheegayo waa midka ugu badan ay mataanuhu ku dhashtaan. In midka koowaad uu madax keen noqdo halka midka labaadna uu daba keen noqdo. Haddii hooyada uurjiifkeeda uu yahay ama hooyada mataanaha wado uurjiifkeeda ay yihiin labadan nooc mid ka mid ah si normal ah oo caadi ayay u dhali kartaa. Hooyooyinka ugu badan ee mataano si caadi ah ama si normal ah u dhalay dhalaankooda qaabka ay u dhashaan ama uurjiifkooda mataanaha qaabka uu u dhasho waa labadan mid ka mid ah. Qaababka kale oo ay noqon karaan uurjiifka oo hooyadana qaliin ay ku muteysan karto waxaa ka mid ah in uurjiifka mid ka mid ah uu dadban yahay inuu mid toosan yahay midna uu dadban yahay. Sidoo kale haddii kan koowaad uu daba keen yahay ayadana waa xaalad kale oo halisteeda wadata oo hooyada ay qaliin ku muteysan karto laakiin marmarka qaar hooyooyinku way ka badbaadaan. Sidoo kale haddii xubin qaldan ay soo hormarsadaan sida gacan oo kale ama xubin kale oo qaldan haddii ay u soo horeyso midkood ama kan koowaad qaliin ayuu muteysan karaan. Markii ay hooyada mataano si caadi u dhalayso waxaa go'aaminayo dhakhtarka. Marka ugu horeyso wuxuu saarayaa kombiyuutarka loo yaqaan ultrasound waxa uu qiimeynayaa xaaladda uurjiifka qaabka ay u yaalaan position-kooda. Midda labaad wuxuu fiirinayaa asbuucyada hooyada ay tahay. Wuxuu kaloo dhakhtarka qiimeynayaa wadna garaaca uurjiifka labada mataano wadna garaacooda ayuu qiimeynayaa. Wuxuu kaloo fiirinayaa biyaha ilmaha ay ku dabaalanayaan in ay ku filan yihiin iyo in kale. Intaas marka uu qiimeeyo kadib ayaa hooyada waxaa loo oggolaanayaa in ay si caadi u dhasho ama si normal in ay u dhasho ayaa loo oggolaanayaa. Haddaba qaabka ugu wanaagsan oo hooyo mataano wado u fiican in ay u dhasho waa maxay? Waxa ay dhaqaatiirtu ku taliyaan hooyada haddii ay marba ay mataano wado in ay u dhasho qaab elective CS ama qaliin la sii qorsheeyay. Qaliinka la sii qorsheeyay waa mid hooyada ayadoo xanuun qabanin markii ay bilaheeda dhameysato oo 9 bilood ay u dhamaato ay si toos ah isbitaalka u imaaneyso. Kadibna loo diyaarinayo qaliin. Waxaa loo yaqaanaa qaliin la sii qorsheeyay. Sababta ay dhaqaatiirta u doorteen hooyo mataano wado in ay qaliin ku dhasho waxay tahay si laga qabo mataanka labaad. Waayo inta badan hooyooyinku markay si normal u dhalayaan waa ay ku daahaan mataanka labaad. Hooyo walba oo xaamilo ah ama foolaneyso Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu u fududeeyo
ugu dambeyn waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii intaan aad soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa.